السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وناكسن داود يا بيل كستو دافع عالم كان قد داوليسان كسر دوا هذا برامج كوحتر كوريا تضبط كيبا هالمرة سلا فوق داوتان فيسبوك يوتيوب كوحتر كوريا تضبط كيبا هالوريا يا كوريا سنة نقول له في سعوديين تصوباليات أي هالكاسي برامج يقول بدن يقول بقى أي سيدي أي مسكعي فكر كذا يو أي سعوديين تكله نسمع كان خبرة يقول وقادم لها سعوديين تكله الصوماليات أو عاو مرتكوا هدي برنامج كان نقول برامج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أويس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد السلام ولا العذيق إيو داودياشا إيو صاحبة برتا فيسبوك أورد سلامي. mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad baan kaaga mahadcelinayaa sida sharafta karaamada iyo qiimaha leh ee aad u soo dhaweysay barnaamijka waxtarka wariyaha waqtina ay siisay ku soo dhawow ayaan ku leeyahay mar kale waxtarka wariyaha أنا أظن ما تصنتهاي وكل وهي عبد السلام ولا هذيك أنا وانكسر وين يا سيد أديو عزمتي برنامج كان قيمة بدن. waa tahay ruuxaantii barnaamijka arrimaha siyaasadda waa ka madax bannaan yahay waxa aan xooga ku saaraa keliya arrimaha saxaafadda iyo anshaxa saxaafadda arrimaha saxaafadda brotokoolka waxyaabahaas oo dhan waxaan ku saaraa barnaamijka waxtarka wariyaha marka ruuxaantii muddo sanad iyo dheeraad buu hadda socday 2 sano ayuu ku cagcageynayaa Facebook live to live waa barnaamijkii ugu horreeyay ruuxaantii laga sameeyo wariyaal iswareysanaya oo suxufigii wax wareysanayay isagii la wareysto oo la weydiiyo aqoontiisa waayo aragnimadiisa waxyaabaha ku kordhin karo waxyaabaha dhibaatooyinka kuwaas suxufiyiinta Soomaaliyeed wixii ka maqanba ruuxaantii waa barnaamijkii ugu horreeyay aan is oran karo waxa weeye barnaamij suxufiyiinta loo baahnaa inay qabtaan oo ruuxaantii aniga ilaahay garasiiyey mar kale ku soo dhawow aweys waana kaaga mahadcelinayaa waxaan ku bilaabaynaa barnaamijkeena waxtarka wariyaha inagoo dhowr qodob oo dhowr su'aalood caawa miiska inoo saaran yihiin suxufi rugcadaan aad tahay in badan saxaafadda ku soo jiray bilowgaaga saxaafadda maxaad ka xasuusataa bilowgaaga saxaafadda marka loo eego عبد السلام ما صنتهاي وحن كوجو بقادين يا أنك جيسني ماذا وحترك أولى بولشة الصومالية سجارة بعض الصحافة وأضغاطتها أتكبر رجليسو بولشة الصومالية صحفيين تا وحترك صحافة أتكجهد ليسو runtii waxay ahayd fikrad looga baahnaa dhammaanteen oo aniga aan ku jiro adiga ilaahay ku waafajiyay waxaan ku leeyahay halkaa ka sii wad wax qurux badan ayaad samaynaysaa intaasi kadib waxaan rajaynayaa daqiiqadaha amaba saacadda aan isla joogno in wax badanna bulshada aan u faa'iideyno annagana aan ka faa'iidna haddii eeba yidhaahdo saxaafadda waa mihnad bulsho waa shaqo bulsho taa oo ka bilaabanaysa qofka shakhsiyaddiisa kuna eg qofka uu la hadlaya ama daawadaha ah ama dhageystaha ah ama akhristaha ah wargeyska wax loogu qorayo xasuustayda warbaahinta anigu waan la soo xanaqaaday iraantayda markaan dib u eego dugsiga hoose carruur baan iska ahaa laakiin mihnada saxaafadda iyo inaan abateed u hayo waxay ugu dhalatay waagii dugsiga dhexaan dhiganayay oo ii sheegeen macallimiintayda fasalka in cod ahaan iyo fikir ahaan iyo hal abuur ahaanba aan ku wanaagsanahay dhanka saxaafadda waxaan xasuustaa macalinkaygii maadada cilmiga bulshada noo dhigayay inuu ugu yidhi waxaad ku wanaagsan tahay miidiyaha amaba inaad suxufi noqoto anoo taa ula dhacsan tan kale waxaad ogsoon tahay marka waxbarashada lagu jiro dugsiga hoose dhexe sare waxaa jira wax la yidhahdo taabuur amaba subax hore intaan xiisada la gelin heesta calanka iyo maxaan ku idhaha ducooyin iyo la qaado marka waxaan jeclaa bulshada inaan la hadlo oo wax gudbiyo qoraalkana waan ku fiicnaa ilaa iminkana weli waan jeclahay oo waan ku shaqeeyaa cabdisalaam waxa ii xigay arrinta kale oo xiisaha badan waxay ahayd dugsiga sare markii aan soo galay macalinka taariikhda ii dhigayay isna wuxuu ugu dhiirigeliyay inaan cilmiga miidiyaha ama saxaafadda aan barto runtii ina fursad qaali ahayd waxyaabaha kale isaaciday ee maanta inaan suxufi ahay bulshada ay garanayso saaciday waxaa ka mid ahaa markii aan qalin jebinayay oo aan go'aan ku gaaray in kuliyadda saxaafadda jaamacadda aan ku biiro ayaa waxaa aad iigu dhiirigeliyay oo aan halkan uga mahadcelinayaa ustaad cabdifataax oo isaguna maadada luqadda carabiga dadka masterka ka diyaariyay oo suudaan kusoo bartay ahaa oo aan leeyahay aad baad ugu mahadsantihiin dhammaan macallimiintayda dugsigii sheekh yuusuf alkooneyn dugsigii cabdullaahi ciise jaamacadda muqdisho oo iyana aan ka soo baxay marka anoo jeclaa macallimiintayda ugu dhiirigeliyeen jaamacadda muqdisho aan ku biiray kuliyaddii saxaafadda waxay ii noqotay ayaamo wanaagsan
oo aad ugu raaxaysto runtii miidiyaha marka laga hadlayo hadda oo aan dhowr iyo toban sano waa 11 sano 12 sano ayaa la yidhaahdaa hadda miidiya inta aan ku jiro waxaan ahay suxufi gudbintana ku fiican aadanaha ama saxaafadda marka laga hadlayo cabdisalaam waxaa la yidhaha qofna wuxuu wax ku gaarsiin karaa dadka oo aad ugu fudud qoraalka qofna inuu hadlo ayuu ku gudbin karaa marka alxamdulilah labaduba waan ku wanaagsanahay media manageran ahay suxufi hadlaan ahay suxufi wax qoraan ahay suxufi isku daya in wax ka duwan miidiyaha hal abuur la yimaado ayaan ahay marka waxaan u malaynayaa su-aashaadii koowaad jawaabteeda intaas waa tahay sanadkee buu ahaa markaas sanadkii aad markaasi toos ugu soo birtay warbaahinta oo aad microphone qaadatay oo aad la jaan qaaday arrimaha saxaafadda laba maadaba way jirtay aniga markii media waxaa jira la yidhaahdo media undergraduating ama media inta waxbarashada ay ku jirta ah iskuulkeena waa lagu baranayay mediaha subaxdii waxba inta tarjumno ayaan luqadda carabiga iyo ingiliishka kusoo tarjunaan barnaamijka subaxnimo raadiyaha idaacadda ka sheegi jiray waxaa kale taas waxay ahayd tii ugu horreysay tan ah in wayfis ka baxsan dhismaha idaacadda ama dhismaha jaamacadda ama dhismaha iskuulka waxay ahayd dabayaaqadii 2008 marxalad runtii aad u adkayd in miidiyaha soomaalida laga shaqeeyo ayaan anigu ku beeray oo weliba anigoon lacag ka raadinaynin xilligaasi barashada jaamacadda iyo waxaa isku aadanaa inaan ku shaqeeyo gelina jaamacadda ayaan miidiyaha ka baranayay gelina waxaan ku shaqaynayay xirfadii aan soo martay marka waqtigaasi ayay cabdisalaan ku aadanay waa tahay marka idaacado tirada ma xusuusataa inta idaacadood aad u soo shaqaysay waqtiyadaas ilaa iyo iminka shaqadayda miidiyaha waxaa igu horreeyey si official ah radio danan oo ilaa iminka isagu magaalada muqdisho ka shaqeeya aan runtii dhihi karo akademiyad buu ii ahaa aniga iyo tiim fara badan oo saaxiibaday ah oo maanta miidiyaha magac fiicanna ku leh shaqo badanna ka haya marka danan waa xasuustaa goobjoog waan ka soo shaqeeyey waxaan ka soo shaqeeyey universal waxaan ka soo shaqeeyey idaacado kale oo shabakad sahal la yidhaahdo aan madax ka soo noqday raadiya codka gobolka banaadir waxaan ka mid ahaa dadkii lagu aas-aasay oo hal abuurka iyo talada iyo tusaalooyinka waaweyn ku lahaa marka idaacadahaasi oo dhan waan soo maray qaarna waan ka soo shaqeeyey qaarna waxba ka soo ahaaba qayb ka mid a maamuladan ku jiray mediahayga inta aan ku jiray media managerna waan ahaa nasiib wanaag suxufina oo barnaamijyada iyo wararka ama tarjuma ama diyaariyana waan ahaa cabdisalaan waa tahay cabdisamid waa ka xumaa cabdisamid cabdisamid raali noqo marka laga hadlayo aways idaacad iyo t v maxaad is oran kartaa faraq baa u dhexeeya idaacad iyo t v wax weyn baa u dhexeeya idaacad waxay kaga duwan tahay t v horta marka la yidhaahdo waxaan dib ugu laabanayaa wax yar oo historiga haddaad iga taariikha haddaad iga raali noqoto miidiyahan waxa uu kusoo bilowday raadiyaha wax ka horreeya ayaa jira qarniga la yidhaahdo ama cusuur wusta ama casru jaahiligii waxaa jira miidiya wuu jiray laakiin kan maanta jira ma uusan jirin dabba wax la isugu gudbinayay bomba wax la isugu gudbinayay farda ayaa wax la isugu dhiibayay maxaan ku ila darbiya ayaa wax la isugu qorayay marka taariikhda aad akhriso miidiyaha waqti fara badan ayuu horreeyey raadiyaha marka la yimaado waxyaabaha la gaarkay waxaa ka mid ah imaginationka amaba khiyaalka malaha qofka ayuu la hadlaa waa dhagaha qofka codkiisa ayaad maqlaysaa waxaad imagination amaba mala maskaxeed ku qabsanaysaa qofkan ma da' weyn yahay ma da' yar yahay ma buuran yahay ma caataa sida aniga iyo adigoo kale ah sawiradaas maskaxda ah go'aan ma gaari karo qofka raadiyaha haysta mararka qaarna waxaa la yidhahdaa wuu ka xiiso badan yahay telefishinka raadiyuhu waxaa qofka looga sheekeeyaa muuqaalka loo siiyaa sida isaga oo muuqaalka hortaagan oo kale waxaa la yidhahdaa madaxweynaha dal hebel waa madaxweyne labis badan suudad madow ayuu qaataa taayada wuxuu qaataa nooca guduudka ah waa markuu sheekeynaya gacmahu ruuxa tilmaamahaas waxaa lagu kabaa raadiyaha uu kaga duwan yahay telefishinka halka telefishinka aad u baahnayn qofka labiskiisa inaad sheegto qofka tayigiisa inaad sheegto qofka sida u laafyoonaya aad sheegto waa maqal iyo muuqaal is wataa tan hadda dunida usoo guurtana weeyaan audio visualka waxa ay yidhaahdaan halka raadiyaha uu ka yahay maqalkaasi sheekadan ay u baahan tahay qofka in dhinac walba
looga sharaxa si sawir wanaagsan uu u qaato marka farqigaas ay u dhaxeeya waxdaan ku dar waxaa la yidhahdaa raadiyaha loolan adag ayuu galay tv-ga markuu yimid waxaa la yidhi horta ayama awood badan raadiyaha iyo jaraa'idka ama wargeysyada jaraa'idkii waxaa la yidhi waxyaabo fara badan way kaga fiican yihiin raadiyaha wargeyska waad haysan kartaa qoraalka wuu kula joogi karaa laakiin newska amaba wararka raadiyaha waa saacad kooban oo soo geli ma kugu soo celinayo wariyaha wuu ku dhaafi marka waxyaabo fara badan oo isbarbardhig ah oo miidiyaha ayaa jira raadiyaha wargeyska waxbuu kaga wanaagsanaa wargeyskana waxbuu kaga wanaagsanaa raadiyaha telefishinkana waxbuu kaga wanaagsan yahay raadiyaha qudhiisana telefishinka wax badan buu kaga wanaagsan yahay marka inahaasi wax tusaale ka mid ah farqiga u dhexeeya raadiyaha telefishinka marka aan ka hadlayno raadiyaha adigoo dee kushiinkaaga ku jira baa dhegeysan kartaa adigoo gaarigaaga watad dhegeysan kartaa adigoo wax qorayaad dhegeysan kartaa laakiin telefishinka saa ma ah wuxuu u baahan yahay loo shaqo daayo lacag fariisto kaybal ayuu wataa marka farqiga u dhexeeya cabdisalam waxaan dhihi karaa waa inahaas iyo in ka badan ay noqon karaan waa tahay mahadsan tahay markaan ka hadlayno nabadda oo kale sidee warbaahintu uga qayb qaadan karaan nabadda dalka qaab nucaaba is leedahay bay warbaahintu uga qayb qaadan karaan nabadda waa su-aal muhiim ah dabcan warbaahinta sida nabadda ay u samayso dhibaatadana way u samaysaa amaba colaadaha waxaana dhab ah in ay tahay seef laba afla ah tusaale ahaan haddaad wanaag u adeegsato miidiyaha dis wanaag wax badan baad kusoo kordhisay bulshada haddii aad u adeegsato dhibaatana wax badan ayaad bulshada kusoo kordhisay waxaan la soconnaa taariikhda dalal ruwanda ay ka mid tahay in miidiyaha dhibaato badan u keenay waxaan la soconnaa dalal kale oo horumaray in miidiyaha xilliyada doorashada ama xilliyada telekoomyada la samaynayo iyana dhibaato ay ku keeneen tusaale ahaan doorashooyinkii ugu dambeeyey 2016 ee Trump iyo Mareykanka ka dhacay warbaahinta qalaad fara badan ayaa laga sheegayay nambaro aan sax ahayn exaggeration ama buubuumi fara badan su'aasha ah sidee uga qayb qaadan karaan warbaahinta nabadda waxaan u maleynayaa waxay ka bilaabanaysaa mas'uuliyadaasi qofka suxufiga ah kow waa mas'uuliyad isaga kow ay ku noqonayso bulshada oo uu mas'uul uga yahay miidiyahaasi waxyaabaha uu soo gudbinayo oo laga rabo inuu ka taxadaro run ahaanshiyaha waxaan ma yihiin wax sax ah oo bulshada ku daawanaysa ama ku dhageysanaysa ku kordhinaysa laba meesha ka soo qaadanaysa sourceska ma yahay sources sax ah oo reality ah oo xaqiiqda sal ku haya intaasi waxa ka sii muhiimsan warkan aad sheegaysa ma yahay mid adkeynaya deganaanshiyaha horumarka dhaqanka ammaanada bulshada aad ku dhex nooshahay waxaa kaloo jirta iyana mas'uuliyad warbaahinta wariyaha waajib ay ka tahay inuu ka dhex eego saxaafadda kale uu ku dhex nool yahay saaxiibadiisa amaba shirkadda warbaahineed uu la shaqaynayo xogta la wadaago talooyin geliyo warkan muxuu saameyn ah ku yeelan karaa bulshada u gudbinayso haddaad saan u tabiso saan ma uga wanaagsanaan kartaa waxyaaba noocaas ayay cabdisalaan ila tahay in warbaahinta nabadda uga qayb qaadan karto waa tahay marka laga hadlayo oo kale warbaahinta iyo shuruucda caalamiga ah kaba soo qaad marka warbaahintu xaq ma u leedahay macluumaad weliba ay hesho warbaahintu xaq ma u leedahay macluumaad walba oo ay hesho inay baahiso si walba oo ay baahiso ama ay khatar u tahay amniga qaranka iyo weliba dalkaba xorriyadda hadalkaba warbaahinta xaq ma u leedahay in macluumaad walba ay baahiso haddii doonto khatar ha ku gasho amniga qaranka ku gala amaba amniga bulshada waxaan u malaynayaa waa su'aal runtii miisaan leh una baahan si taxadar iyo cilmi iyo aragti fog looga jawaabo ma u malaynayo in qof walba ay ka jawaabi karayso warbaahinta macluumaadka ay hesho waxay mas'uul uga tahay bulshada waxay mas'uul uga tahay danaha dalkaas iyo dadkaas iyo bulshada ay ku dhex nooshahay marka si kooban marka hore waxay la tahay macluumaad walba oo khatar ku keeni kara amni qaran iska dhaafay shakhsi inaan la tabin karin waxaa tusaale kugu soo qaadanaya sheeko dhowaan aan ku qoray barteedan facebooka ah oo aan kaga hadlayay amniga qaranka maraykanka iyo warbaahinta halka ay kala joogaan sheeko waxaan soo qaatay dalka afghanistan cafwan
waa iiraan iyo maraykanka oo wada hadallo maxaabiis ka yeelanaya labada dhinac waxaad la socotaa in tehraan ay haysay maxaabiis maraykan ah oo lala xiriirinayay in basaas ay ahaayeen maraykankan uu hayay rag iyana lala xiriirinaya inay ku tunteen cunaqabatayntii maraykanka uu kusoo rogay dalka iiraan marka xog waxaa jirtay cnka uu helay waqtigaasi oo macluumaadka hadda aan sheegaysa camal ah oo tibaxaysay in la tabin karayo cnka ma tabinaa macluumaadkan ka hadlaya wada hadallo qarsoodi ah u dhexeeya maraykanka iyo iiraan marka mas-uuliyiinta cnka waxay qaateen go'aan ah inaan la tabin macluumaadkaasi la xiriira wada hadallada u dhexeeya iiraan iyo maraykanka ee maxaabiistaasi la xiriira isla wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka mas-uuliyiin ka mid ah ayaa la xiriiray cnka uu ka codsaday inaysan baaxinin laakiin waxay ku wargeliyeenba in waqti sii horreysay ay go'aan ku gaareen inaysan tabin iyadoo la eegayo badqabka iyo ammaanada iyo wada hadalladaasi inaysan guuldaraysanin ee u dhexeeya xukuumadaha washington iyo tehraan marka xog walba amaba macluumaad walba oo qofka suxufiga kusoo dhaca ma u malaynayo inuu ku dhiiran karo isagoo og in dhibaata ay ku keenayso muwaadin inuu baahiyo walaal waa tahay maxay yihiin xadka lama dhaafaanka ah ee warbaahinta u diidaysa inay baahiyaan macluumaad laga yaabo inay khatar u yeeli karaan amniga oo kale dabcan waxa afka qalaad lagu yiraahdo redlineska amaba khuduuda xamraa luqadda carabiga lagu yiraahdo amaba xad lama dhaafaanka ah ee miidiyaha waa mid derbi amaba xad qofka ku celinaya xeyndaabka mihnada saxaafadda sharafta leh ama haddii ahaan lahayd sirta qofka in la ilaaliyo sir qaran la ilaaliyo sir bulsho la ilaaliyo amni shakhsi la ilaaliyo mararka qaar xadkan lama dhaafaanka ah waxaa ka mid ahaan kara nabadgelyada shakhsiyadaada amaba shaqadaada haddii ay khatar ku keenayso shaqadaasi amaba xogtaasi wax lagama marmaan ah inaadan dhaafin oo aad halkaa ku ekayso si adigana u badbaado bulshada aad ku dhex nooshahayna u badbaasho dunidana waa isla qaatay tusaale ahaan walaal waxaan soo qaadan karaa qodobka koowaad ee dastuurka maraykanka wuxuu damaanad qaadayaa saxaafadda waa xorriyadda saxaafadda ogow isla iyada haddana maraykanka dastuurka waxa uu leeyahay laba qodob waa lama taabtaan amaba waa xadka lama dhaafaanka ah kow waa sirta amniga qaranka maraykanka saxaafaddu kama hadli karto kan labaadna waxa weeyaan oo aan walaal laga hadli karin marka la yidhaahdo xadka lama dhaafaanka ah minada saxaafadda in qofka suxufiga ah amaba miidiyaha ah uusan ku xadgudbi karin shakhsiyadda qofka ama aflagaada ha ahaato ama sirta qofka inuu banaanka soo dhiga ha ahaato waa iyana meelaha lama dhaafaanka ah ee saxaafadda aysan ka tallaabi karin walaal waa tahay sidee ula jaan qaadi karnaa inagu maadaama inay soomaali nahay suxufiyiin soomaali nahay sidee ula jaan qaadi karnaa shuruucda saxaafadda ee caalamka iminka ka jira ee la adeegsanayo ee suxufiga doonaya inuu adeegsado qaab noocaaba isleedahay baan ula jaan qaadi karnaa haddaynu soomaali nahay والله أدري فضل ده طبعا هذا الدنيا ويسوف فرنتها globalization كود لا سعتها قلنا أنا أديك بقى وحن كره لنا كان فرح بدن social media أما براه إنترنت كأ مركا وحنا لو جال قال كرنا ضلال كان مرايكن كا أما الدنيا كله هرمرت ميديا هودنا هرمرك وسمية وحاجرة حرر الدجستين ولا ما أنت لو نغمة تصالح كون سجال مقول صدري أفرتن كي جودجا warbixinada saxaafadda xorta ah ee maraykanka uu diyaariyo waxaa jira warbixin uu soo saaray eeg waa 1947kii innaga ma jirin ba xorriyad markaasi haddaan nahay Soomaali marka taasi waxay tusinaysaa in miidiyaha xirfadiisa xeerarkiisa xorriyadda hadalka wax badan la inaga horreeyay taasi waxay qasbaysaa marka inaan casharo ka baranno inaan akhrino miidiya caalamiga ah inaan akhrino xeerarka warbaahineed inaan dib ugu laabano dastuurka dalka oo naftirkiisa xorriyadda saxaafadda iyo maqaam fiican siinaya aadna u sharaxaya waxaa muhiim ah si aan ula jaan qaadno inaasaa sheegtay in la helo wacyigelin oo tan hadda aad waddo walaal ay ka mid tahay saxaafaddii dadka aad ku tuhmaysaan aqoonta inaad la hadashaan noogu keentaan baraha bulshada la doodo aragtiya la isdhaafsado mawaadiic gaar ah sida barnaamijkan furan uusan noqonin mawduuc gaar oo la yidhaahdo sirta iyo saxaafadda tusaale ahaan ama dood kale laga sameeyo la yiraahdo privacyga si loo ilaaliyaa waxyaabahaas oo dhan waxay noo suurtagelinaysaa walaal
inaan la jaan qaadno xeerarka caalamiga ah ee saxaafadda saxaafaddina runtii tay yeelato waa tahay sidee la isugu dheelitiri karaa basanaysa xorriyadda baahinta ilaalinta amniga qaranka iyadoo la eegayo weliba sharafta weliba ama karaamada suxufiga oo kale qaab nooca bay sanaysaa oo la isugu dheelitiri karaa wallahi tan amniga dee anigu kuma takhasusin laakiin media marka laga hadlayay amniga wuxuu ka bilaabanayaa shakhsiyadda qofka waa nafsadaadu ka bilaabanaya markaad rabto inaad amni iyo warbaahin ama waxa aad sheegaysaa isu dheelitirtaa horta adiga isweydii su'aalaha ay ka mid yihiin war waxaan aad adigu shaqadan aad qabanayso khatar ma ku tahay amnigaaga su-aasha labaad khatar ma ku tahay bulshada aad ka dhex shaqaynayso qaranka aad ka dhex shaqaynayso inta in la eg bay dhibaato ku keeni kartaa taa macnaheedana ma ahan in la iska iloobaa in lasoo bandhigaa xogaha rasmiga ah gaabis ka jira maxaa yeelay waxaa la yidhaahdaa miidiyaha waxa uu kormeer ku yahay dowladda amaba maamulka markaasi jiro haddii dimuqraadiyadda ay jirto weeyaan waxa uu soo bandhigaa waxyaabaha baahid u qabaan bulshada ama caafimaadka ha ahaato ama siyaasadda ha ahaato waxaa laga yaabaa hadda warbaahinteennan keliya boqolkiiba boqol waxay ka hadlaan inay tahay ammaan iyo siyaasad laakiin waxaa jira intaas in ka badan oo ama dhaqaale ah ama arrimo bulsho ah ama maxaan ku idhaahdaa taariikh ama sheekooyin fara badan isdheelitirka si kooban waxaan qabaa waxaa la isugu dheelitiri karaa in shaqo walba oo laga qabanayo miidiyaha loo eegaa war muwaafaqsan tahay xeerarka caalamiga ah xeerarka dalkaasi u degan yahay ma badbaadinaysaa bulsho saas baan aaminsanahay in la isugu dheelitiri karo waa tahay marka goorma ayaa qofka suxufiga ahi qofka uu ku tilmaami karaa dambiile kaba soo qaad waxaynu aragnaa warar la soo dirayo ama suxufiyiinta qaar ay adeegsadaan hadalla ay ka mid yihiin qofkii oo aan ruuxantii qof aan maxkamad la soo taagin oo aan sharci la soo marin ayaa waxa lagu sheegayaa dambiile macnaha mararka qaarkood hadallada dadka suxufiyiinta qaarba siba u dhigaan marka goorma ayaa warbaahintu soo bandhigi kartaa qofkaasi waa dambiile ay oran kartaa una adeegsan kartaa odhahda caadiga ee rasmiga ah inta saxaafadda aan anigu ka bartay amaba aan ku shaqaynayay weli ma arkin qodob dhahaya suxufiga waxa uu dhihi karaa qofkan waa dambiile amaba waa tuug ama waa kada ma arkin xeer saxaafadeed oo dhahaya laga yaabo dad iga cilmi badan inay jiraan oo sorry oo arrintaasi qeexi karaya laakiin ilaa hadda ma hayo in qofka suxufiga oo go'aan isagu gaari karayo hadduu go'aan gaari karo qofka suxufiga ah way loogu baahday garsoore way mas'uul xafiis loogu baahday way loogu baahday abukaate way loogu baahday madaxweyne way loogu baahday marka ma jirto in qof suxufi ah awood u siinaysa inuu yidhaahdo qofkaasi waa dambiile amaba mararka qaar waxaa la yidhahdaa su-aashan bal eeg haddii aad goobjoog u tahay mas-uul dal oo gaarigiisa inta lagala soo degay la dhibaateeyey adigoo saxafiya arkayay seed u tabinaysaa ma waxaa leedahay anigoo caawarka idiin akrinayo hebel ah waxaan qirayaa in hebel oo mas-uuliyaddaas waddankaasi ka haya nin noocaas dhar noocaasa watay kada dhibaateeyey saas ma samayn karaa suxufiga mararka qaar su-aalahaasa la isweydiinayaa waa sax ma ka jawaabi kariyo mana qiri kariyo suxufiga go'aanna ma gaari kariyo waa in warka uu sheegaya walaal meel loo tiiriyaa la helaa tusaale ahaan sourceska warka aad ka soo qaadanayso waana dhihi kartaa warar ayaa iyo xaqiijinaya in mas-uul hebel oo shil noocaasa ama ku dhaawacmay ama ku geeriyooday laakiin adiga inaadan go'aan gaarin mararka qaar waxaa sharci darro ah oo saxaafadda mararka qaar laga yaabo inay ka dhacdo qof booliiska waddada ay ka qabteen oo la tuhmayo in sawirro inta laga soo qaado baraha bulshada la dhigo sax ma ah waxaa la isweydiin karaa qofkaasi haddii lagu waayo eedeymihii loo hayay beri uu noqdo berito soo sumcad xumo kuma aha bulshada dhexdeeda qof la ceebeeye sooma noqonayso qof media uu ceebeeye sooma noqonayaan marka qofka eedeysanaha ah sida qaacidada garsoorkana uu qabo ilaa maxkamad la horgeeyaa waa beri ama wax dembi ah malaha keliya waxa la isticmaali karaa waa eedeysane waa tahay marka laga hadlayo arrimaha dhacdooyinka kaba soo qaad qarax baa dhacay oo kale masiibaa dhacday oo kale dhibaataa ka dhacday oo waddankii oo kale
sidoo kale waxaa dhacday iyana in ciidamo meel xero ciidamo ku tababaranayaan oo kale weriya unug war ka soo qaado macnaha marka laga hadlayo ma bannaan tahay in dembile laga dhigo qofka ku dhiirada baahinta macluumaad taabanaya amniga waa maxayse shuruucda kale haga warbaahinta madaxa bannaan iyo ta dowladda khibrad ahaantaada markaad eegto maxaa suxufiga looga baahan yahay in waxyaabaha ka mamnuuca ah ee uusan ku dhiiran karin iyo waxyaabaha uu ku dhiiran karo ee saxda uu soo tabin karo barnaamijyada ama waraa walaal waa mahadsan tahay jawaabta intaan haa iyo maya ku oran waxaan ka doorbidayaa inaan macluumaad gudbino tusaale ahaan warka la xiriira militariga amaba ciidamo wuu ka duwan yahay warka ganacsiga la xiriira horumar ganacsi iyo kan militariga ah farqi weyn ayaa u dhexeeya weliba marka xaalad dagaal ay jirto tabinta wararka ayana way ka duwan tahay runtii mas-uuliyad iyo xeerar iyo deganaanshiyo iyo waa in ay maraan tafaftir adag inay maraan waxaan arkaynaa sometimes ama mararka qaar in social media ama warbaahintii oo baahday ay suurto gelisay in dhacdadii meesha ka dhacaysay iyo mediahaba it's loo daawan karo goormee qofkan dambiile lagu tilmaami karaa isla sheekada hadda aan ka sheekaynaynay labadeenuba ma dhihi karno qofkaasi waa dambiile ilaa processkii iyo hanaankii uu maro qofka waa in jiha mucayan ah oo garsoor ay soo eedeyso maxkamad la geeyo abukaato qabsado doodiisa la galo kadib lagu dhawaaqo xukunka markaasi uu leeyahay warbaahinta meeshaas ayaa jaanis uga furan yahay halkaa bay dhihi kartaa hebel hebel oo maxkamad la soo taagay ayaa lagu eedeeyey amaba lagu riday xukun noocaasa isagoo lagu eedeynayo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ah marka si guud xaalad amni marka laga hadlayo wax badan way ka duwan tahay waan ku celinayaa xaaladaha kale ee media uu kaga hadlayo warbaahinta madaxa bannaan iyo tan dowladda ama warbaahin dowladeed maxay ku kala duwan yihiinna walaal waa wax cad way qoran yihiin kuliyadaha saxaafadda lagu qaataa buwaagtay ku qoran yihiin kaliya ma ahane waxaa jira dhowr iyo boqolaal nooc oo warbaahineed oo dunida looga shaqeeyo maraykanka waxaa ku yaala intaas oo janal ee radio ah waxaa ka mid ah raadiyaasha ka shaqeeya maraykanka kuwa music kaliya ah editorial policy-gooda iyo qaabka looga shaqeeyo way ka duwan tahay kuwa kale waxaa ka mid ah radio weliba maqashay dooqaaga la yidhaahdo waxaa ka hadlaysa dooq raashinkaaga dooqa labiskaaga waa radio kaliya specialisti ah oo intaa ka sheekeynaya raashinkan waa HSA la isweydiinaya maanta oo dhan waxaa jira idaacado ka sheekeeya wax religionka la xiriira ama christianity ha ahaato ama muslim ha ahaato ama diin kale ha ahaato way ka duwan tahay idaacadaha kale waxaa jira idaacado ahzaab u shaqeeya way ka duwan tahay kuwa madaxa bannaan idaacadaha dowladaha way ka duwan yihiin kuwa private-ka ah sida aad sheegtay walaal idaacadaha madaxa bannaan ee aan naqaana innaga iyana way ka duwan yihiin tan hadda loo badan yahayna waa taas oo qof walba wuxuu ku leeyahay idaacad madax bannaan oo inaad dhexdhexaad ahaataa waa inaysan dhinac ahaanin waa in wararka labada dhinac ay u balance garaysaa waa hal dhinac haddii la eedeeyo dhan kale waa inay raadisaa yes farqiga u dhexeeya ee madaxa bannaan horta tan waa taa waxaa kuu soo haray idaacad ku hadlaysa magac dowladeed dunida ama dowladdii doonta ha ahaato waxay kaga duwan tahay tan madaxa bannaan idaacaddan policyga loo dejiyey waa in ay suuq geysaa amaba ilaalisaa siyaasadda dowladdaasi ku hadashaa magaca dowladdaasi lagu soo gudbiyaa dhacdooyinka iyo waxqabadka dowladdaasi madaxda dowladdaasi shacabkooda ay kala hadlaan maxaan ku idhaahdaa waxyaabo saasa ah ay farqigu idaacad madax bannaan iyo mid u shaqaysa ama xisbi ama u shaqaysa urur ama u shaqaysa dowlad ay u kala duwan yihiin waa tahay marka laga hadlayo iminka oo kale baahiyo badan baa jira sidee lagu heli karaa goob maxad tababarax oo tayo leh oo saxaafadda lagu barto si markaasi loo helo goob wanaagsan oo warbaahin intaa ka waran sidee u aragtaa maxaad fikir ahaan ku dar lahayd in la helo goob tababar oo fiican oo suxufiyiintu ay u baahan yihiin way aad baa umahadsan tahay aad baan u adkaynayaa runtii inaad ka hadlayso uguna faraxsanahay xarun tababar warbaahineed aad iyo aad baa loogu baahi qabaa waxaad ka warhaysaa jaamacadaha miidiyaha lagu bartaa way tiro yar yihiin inta ka soo baxdana aad bay u tiro yar yihiin taa macnaheeda waxaa ka badan idaacadaha ama telefishinada ama websaydyada ama wakaaladaha
miidiyaha ee aadka wax loogu qoro amaba bulshada lagala hadlo sorry warbaahintii oo badatay waxa ay keentay in human capitalkii amaba wariyaashii ay yaraadaan anigu waxaan ka mid ahay tababarayaasha saxaafadda dhowr dufcana waan soo saaray waan la wadaagay way aragnimadeeda iyo khibradeyda alxamdulilah wax badan bay miidiyahana ka bedeleen kuna soo kordhiyeen laakiin kuma filna intaasi kuma filna waxay u baahan tahay hawl intaasi ka ballaaran hadda dalka sidoo hore aad buu uga wanaagsan yahay marxaladdii aniga wax ku bartay marka loo eegiyo tan maanta farq weyn ayaa u dhaxeeya iskuulladu way soo badanayaan jaamacadaha way soo badanayaan dhalinyarada waxbarata way soo badanayaan marka tala ahaan waxaan qabaa kuma filna workshop looga hadlo hal ciwaan oo miidiyaha ah tusaale ahaan si badqabka suxufiga oo kale ah waxay u baahan tahay courses fara badan oo xiriir ah oo practical iyo theory intaba leh dadka la tuso dunidana way leedahay waxaa ka soo baxaya dad fara badan oo talent leh amaba hibo u leh miidiyaha waxaa suurtagal labadeenuba qof nooga wanaagsan miidiyaha oo aan jaaniska aan helin inuu jiro haddii tababarkaasi xarumahaasi lagu soo birin lahaana wax badan kusoo kordhin lahaa marka waa adkaynaya waana ku talinaya in xarumahaasi warbaahinta la sameeyo tababarka waa tahay aways marka laga hadlayo ururo badan baa ka jira ururaha ka jira Soomaaliya ururada warbaahinta sidee hal mid looga dhigi karaa oo u noqon karaa mid kuwa awood leh oo hal mid oo dalad guud ahaan ah oo Soomaaliya oo dhan mudaysa sidee lagu heli karaa hal dalad oo awood leh bas leedahay horta aan ka hadalna ahmiyadda niqaabad saxafiya ama organization kan media ay u leeyihiin warbaahinta waxaan la soconnaa ama carabta ahaato ama afrika ahaato ama asia ama maraykanka dheh waxaa ka jira ururo saxaafadeed oo mid ahayn labana ahayn kuwaasi oo macno gaara ugu fadhiya warbaahinta isu tagyo waxaa jira ama group hala baxaana taftariyaasha meediyaha ama tababarayaasha meediyaha ama kuwa caawiya xuquuqda suxufiyiinta iyo dunida meel walba ka jiraan iyagoo mid iyo laba ahayn waxayna ku soo kordhiyeen miidiyahooda dalka ay ku nool yihiin wax macno gaara ugu fadhiya oo tayana u leh horumarna u leh marka waxa iga muhiimsan in hal urur la helo in la helo tayo miidiya cid walba oo gacan ka geysan kartaana ay ka geysato qof walba oo isbidaya inay wax un miidiya aqoon ah amaba hidaa ay ku jiraan uu ku kordhiyo sax hadda ururada jira dalkeena ee miidiyaha ah runtii duruufta dalkii la qabaan dalka siduu u yaallo ayaa iyaga awoodooda iyo kartidooda iyo tayadoodana u yaalaan by the way waxaan ka warhayaa in dhalinyarada madaxda ka ah ururadaasi dadaal fara badan ay bixinayaan tababaro fara badan aan kala qayb galay talooyin fara badan ayaan ku leeyahay siiyey dadaalkooda ma xuma laakiin in la guulaystaa waxay u baahan tahay in shaqo badan la qabtaa waa tahay marka laga hadlayo suxufiyiinta goobaha warbaahimaha ka shaqeeya oo kale dhawaan waan arkay TV-ga qaranka oo kale oo hadiyada guddoonsiinaya suxufiyiin u shaqaynayay sidee arrimahaas oo kale lagu dhiirigelin karaa in suxufiga wanaagsan ee barnaamij fiican soo diyaariya sanadkan ugu fiicnaada hadiyada la siiyo lagaga farxiyo arrintaas oo kale dhiirigelin noocaasa qaab noocaa baa lagu sii wadi karaa baa is oran kartaa وتهي أويس محمد أويس حسن أيوها وبرامج كي يلا قيب قادنا يي حديه برالك نقدي بيان نقول لابن دون برامج كا لسي وذاك أصحابتي إنه سيف عافية حديه برالك نقضه وحن رجينا يا إن أويس عندي بوسو علي عنا وقت وقبل نقول هاي فلنا أصحابتي إنه لسي وذاك أويس بنكون نقول يا أويس هداك شوكتي سو شيك
weys baan soo gebagabeynaa insha allah. Weys baan ku noqon doonaa haddii ay baraali ka noqdo, khadka si live ah ugu jira. waan uga mahad celinayaa saaxiibka weys oo barnaamijka nagala qayb qaatay. waanu soo gebagabeynaa ma dhow haddii ay baraali ka noqdo. asxaabtiina lasii wadaaga haddii ay baraali ka noqdo. weys haddaad joogta iisoo sheeg insha allah si aan usoo gebagabeyno. intaas wuxuu ahaa Aweys Xasan Maxamed oo barnaamijka igala qayb qaadanayay. anigoo Cabdisamed Shibin ay la socodsiinay. barnaamijku wuxuu ahaa barnaamijkii waxtarka wariyaha. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo waqtiga qaaliga aad noo hurteen. waan jecelahay hadda Aweys inuu mar kale hadduu soo geli karo mar kale baan isku dayayaa inuu soo galo haddii ay baraali ka noqdo. haddii kalena aan barnaamijka soo gebagabeeyo. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo waqtiga qaaliga aad noo hurteen. intaas waxaan kusoo gebagabeynaa barnaamijkii waxtarka wariyaha oo igala qayb qaatay saaxiibkay Maadaya ka gaadhe Aweys Xasan Maxamed oo ah suxufi rogcadaan badan saxaafadda kusoo jiray. Aweys waa kan sugaan soo gebagabeynaa. Aweys waa soo galay khadka ayaa yara xun. Aweys soo galay waan soo gebagabeynaa. Aweys waa ka xumahay oo iga go'ay runtii aad baan uga xumahay gabagabaan maraynaa sidoo raali noqdo daawad gabagabaan maraynaa marka waad weydiin kartaa xikam maxamed su-aasha waad weydiin kartaa insha allah anagu waqtigu nagu yaryahay. su-aashu waxay ahayd sidee lagu wadi karaa hadiyadaha la siiyo suxufiga wanaagsan ee warbaahinta Soomaaliya ka shaqeeya si markaasi loogu dhiirigeliyo in suxufigaasi sanadkiiba suxufiga ugu wanaagsan la siiyo hadiyado iyo waxyaabaha kaga farxiya. arrintaas sidee u aragtaa? way wanaagsan tahay mar walba oo qof shaqo u qabtay lagu abaalmariyo. waa arrin runtii bini'aadamnimadana ku wanaagsan, diin ahaanna ku wanaagsan marka islaam aynu nahay laga eego, bulsho ahaanna ku wanaagsan. qofka shaqada uu qabto lagu abaalmariyo waxay ka dhigan tahay in kuwa dambe ee ka dambeeya isagana berito lagu abaalmarin doono. waxaa kaloo macno gaar ay u samaynaysaa inuu ku dhiirado shaqadan maanta lagu abaalmariyey inuu sii laba jibaaro. dunida waa aragtay kubadda cagtana waxay leeyihiin abaalmarino, saxaafaddana waxay leeyihiin abaalmarino caalami ah. marka in bulshadeena Soomaaliyeed si gaar ah saxaafaddeena oo soo kabasho ku jirta, dhibaatooyin ku shaqaynaysa, in maamulka markaa jira ama institutionka dowladda ha ahaado ama kan xafiiska suxufiga uu ka shaqaynayo ahaado in la dhiirigeliya aad baan u adkaynayaa waana xoojinayaa walaal. waa tahay inagoo soo gebagabayn doona haddii ay baraali ka noqdo. marka laga hadlayo sawir qaadida oo kale goobaha ay qaraxyadu ka dhacaan oo kale wariyaha waxaad arkaysaa badanaaba qaarkood waxaad arkaysaa qof caloosha kasii laalaado, qof meyda, qof ruuxaantii dhibaataysan, wixii oo isku dooban in markiiba war degdega la yidhaahdo Facebook la soo geliyo. arrimaha noocaasa maxaad kula talinahay suxufiyiinta noocaasa? shaki kuma jiro warka degdega in loo baahan yahay because adduunka macluumaadka hadda wax lagu tartamayo waa informationka qarnigan lagu jiro. haddana waxay u baahan tahay isla ayadaasi oo breaking newskii ama wararkan ethicska ku ogolaanaya dhacdadan degdega ah. dhacdooyinka waxaa loo kala qaybiyaa media marka la joogo dhacdo la filan karo inay dhacayso. tusaale ahaan madaxweynaha ayaa booqanaya saldhigyada ciidamada maalinta berita ah waa lasii ogyahay, ama baarlamaanka ayaa shiraya waa war la ogyahay oo lagu sii tashan karo. laakiin shil diyaaradeed annagada waxaan naqaanaa qaraxyo sooma ah. dunida waxaa jirta waxa la yidhahdaa shil diyaaradeed, waxaa jira fatahaado ilaahay naga hayo, waxaa jira duufaano, waxaa jira shilal gawaari. marka intuba loo geeyo qaraxyadan ama weeraradan hadda dunida mashaakilka ugu badan waxa weeyaan bini'aadamkan hubaysan ee dadka dilaya. qaraxyadaasoo kale waxay u baahan yihiin qaabka loo tabinayo in aad marka hore wariyaha nafsadiisa uu ka taxadaro, goobta meesha ay ka dhaceen dhacdada iyo raali noqda fogaanta u jirsanayo ma tahay mid samata bixinaysa asaga ma badbaadaya, asaga iyo agabka uu wato ma badbaadayaan. dan waxa uu duubaya ama uu soo bandhigayo ma yihiin wax u baahan
in laga taxadaro tusaale ahaan telefishinkaaga waxaa daawanaya dad nooc walba leh caruuraa ku jira hooyooyin laga yaabo in qaarkooda xanuuno gaar ay qabaana ku jira dhiigkarkii dad fara badan oo qaba ku jira stresska dad uu ku badan yahay ku jira waxaa jira marka sheekooyin iyo muuqaalo u baahan inta aan shaashada lasoo saarin in editorial policy soo maraan la tafatiro aragga waxa uu dhibayo shadow la saaro waxa dhiigga faraha badan amaba mashaakilka kale oo qofka dareenkiisa dhaawacaya in laga saaro maxaa yeelay suxufiga waxaa waajib ka saaran yahay dareenka qofka inuusan dhaawicin qalbigiisa maxaa yeelay gurigiisa ugu galaysaa qofka shaashadan isagoo raadinaya war degdeg ah ayaa waxa uu soo saartay wax uusan daawan karin marka xadgudub ayay ku noqonaysaa marka muuqaaladaas oo dhan suxufiga waa inuu ka eegaa isaga oo warkii degdeg u baahinaya haddana in xeerarkii ama dadkii qalbiyadooda dareenkooda uusan dhaawicin waa lagama maarmaan waxaa jira markaa siyaabooyin fara badan oo loo tabiyo dhacdooyinka degdega ah xaruna ka tirsan tahay arrin degdega ayaa dhacday kow intaadan ku bixin horta bal isweydiiya meesha wax ka dhaceen xanaanka loo tabinayo dadka baxaya waa dad noocee ah see la isu kala qaybinayaa fogaan intee ereegaa loo jirsanayaa leef goormee laga dhigayaa ma waxaa jira sheekadan recording baa u isticmaalaynaa ama facebooka su-aalahaas qofka isagoo is-og marka hawsha uu qabanayo in fagaarihii waxay ka dhaceen oo yimaado waxyaabaha dhacdooyinka leefka ah haddaan ku daro dhacdadii ugu dambeysay ee dalka kenya hoteeladii la weeraray guddiga warbaahinta qaranka ah amaba dalka kenya waxay ka dacwoonayeen wargeys caan ah oo reer galbeed marka waxaan akhriyay riboodkii loo diray qoraal ah waxaa la yidhi warbaahinta reer galbeedka ah markay tabinayaan dhacdooyinka ka dhaca ama washington ama paris ama london ma soo wada bandhigaan waxyaabaha agagaxa leh way u soo bandhigteen hoteelada la weeraray iyagoo kombiyuutaradooda wax ku diyaarsanayay runtii waxay ahayd muuqaalo aad looga argagaxo wax aad looga xumaado marka dhacdadan degdega ah doodeeda waa ay badan tahay waana lagu kala duwan yahay laakiin waxa keliya oo looga badbaadi karaa waa in dareen mas-uuliyadeed oo ka bilaabanaya shakhsiga inuu jiro waa tahay suxufiga goob warbaahineed ka shaqeeya haddii uu facebookiisa ku soo qoro fikrad isagoo aaminsan yahay saameyn ma ku yeelanaysaa warbaahineed waxaan ka hadlaynaa horta waa saxaafad waa media si kale haddaan u idhahdo waxaan ka hadlaynaa waa shaqo bulsho loo hayo oo ka bilaabanaysa hagaajinta habdhaqanka qofka habdhaqanka saxaafadda habdhaqanka bulshada isku xiraya bulshadii iyo saxaafadda marka danahaasi wadaagga ah ee ka bilaabanaya suxufiga ee u gudbaya suxufiyiinta kale ee ku sii xiraya bulshada wax u tabinayo runtii waxaan u malaynayaa in laba qof aadan ahayn marka stuudiyo aad tidhaahda caawa warka anaa idiin akrinaya ee aad tidhaahdo waxaan idiin akrinayaa war dhexdhexaad ah war dhinac walba ka dheelitiran qofna ma caynayo markaad warka ka soo baxda haddana ninkii aad warkii aad ku qaadanayso newskiisa oo aad ku soo aflagaadaysa bartaada waxaan u malaynayaa laba qof oo laba magac leh ma tihid tan kale ma jirta qaacido dhahaysa markaan facebookayga wax ku qorayo suxufi maahi laakiin markaan raadiyaha ka hadlayo suxufi baan ahay waxaan u malaynayaa arrintaasi inaysan sax ahayn mar walba suxufi baa tahay ama facebookaaga wax ku qor ama twitterkaaga walaal wax ku qor ama telefishin ka hadal mar walba wixii aad ku ilaalinayso stuudiyaha aad ka shaqaynayso xeerarkii ku dabrayay waa mar walba inay ku dabraan waa beejkaaga oo 5,000 oo qofood ay ku xidhan tahay waxaa laga yaabaa raadiyaasha qaar in beejkaaga uu ka saameyn badan yahay ka waran dadka ku raacsan hadday yihiin 100,000 oo qofood farandiskaagana ay yihiin 5,000 imisaad haysataa 105,000 oo qofoodaa kugu xiran marka idaacadaha qaar iyo telefishinada qaar badan ka daawasho badan meeshaasaa la rabaa inaad ku ilaaliso xeerkii iyo etikiskii saxaafadda marka anigu waxaan qabaa doodaasi way furnaan kartaa walaalle laga yaabana wax laga dooda inay tahay suxufiga marka beejkiisu wax ku qoraayo waa inuu suxufi ahaadaa telefishinka markuu warka ka akrinayana waa inuu suxufi ahaadaa labaduba ma jirto shakhsi caadiya baan ahay xaalad dhahaysaa marka waad mahadsan tahay
waa tahay barnaamijkan waxtarka wariyaha sanad labadii sano wax yarba uga dhiman maxaad jeceshahay in aad ku soo kordhisid sidee soo aragtaa barnaamijkan quruxda badan waxtarka wariyaha aad baan uga maqsuud ahay caawa ka horna waan ku tixnaa aamine muuse iyo suxufiyiin dee cabqariyiin ah oo cabdisalaan uu ku jiro saaxiibka cabdinaasir uu ku jiro dad fara badan baan halkan ka daawaday oo sidan oo kale loo marti qaaday wax badan oo cashiro ahna aan ka faa'iidaystay marka barnaamijkan waxaan leeyahay wuu guulaystay waxaan u rajaynayaa sanadka saddexaad hal abuur iyo aragtiyo cusub iyo debates inaad u rogto meesha hadda qof aad noo wareysanayso bal in hal mawduuc inta noo xadido mawduucaas laga doodo dadka fariimo ay ku soo diraan su'aalo looga jawaabo marka adigana ku mahadsanid walaal shaqada fiican ee bulshada u hayso annagana waxaan kugu garab siinaynaa talo iyo tusaale iyo inaan barnaamijkan kala qayb qaadano aad baan ku salaamayaa aways ugu dambeyntii maxaad faraysaa suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ku daawanaya asxaabtaada waxaan farayaa mas'uuliyaddu waxay ka bilaabanaysaa shakhsiyadaada suxufi labo hay'adda u shaqayso saddex bulshada aad ka dhex shaqayso intaba mas'uul ayaad ka tahay waxaan farayaa suxufiga Soomaaliyeed in mas'uuliyaddaasi si run ah uu qaato in mas'uuliyaddaasi uu ka soo dhalaalo in ammaanadaasi uu guto suxufiyiintu waxay helaan xogo kala duwan oo lagu qarsado xogahaasina in la ilaaliyana ammaanada ah waan adkaynayaa waana ku xoojinayaa adiga iyo tiimka shaqaynayana walaal aad baad ugu mahadsantihiin inaad fursaddan ii siisaan barnaamijkan waxtarka suxufiga inaan idinkala qayb qaato aad baad u mahadsan tahay aniga iyo aways saaxiibkay waxaan iskaga tegaynaa haddii ay barnaamij ka noqdo dib intaan u kulmi doono waadna ku mahadsantihiin daawashada iyo waqtiga qaaliga aad noo hurteen dhammaantiin aniga iyo aways nabadgelyo